بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa fariin digniin ah inaan u diro dhalinyarada Soomaaliyeed. Fariintan waxa ay ku saabsan tahay ahmiyadda ay shaqadu leedahay. Shakhsi ahaan khibradeyda shaqo waa 16 sano. 16 sano waxyaabaha aan bartay waxa ay ku saabsan yihiin aqoonta farsamada iyo teknoolojiga aan ka shaqeynayay. Waxay ku saabsan yihiin ganacsiga iyo sida u socdo. waxay ku saabsan tahay dadka iyo sida u fakaraan. waxay ku saabsan tahay bulshada iyo duruufahooda. waxay ku saabsan tahay wacyigaaga iyo garashadaada. waxay ku saabsan tahay la tacaamulka duruufahaaga. 16 sano caqliga aan leeyahay, aqoonta aan leeyahay, waayo aragnimada aan leeyahay waxaa kaalinta ugu weyn ka lahaa shaqadii aan shaqeynayay. qofka dhalinyarada ah waa khatar in uu ku fakaro in uu qabatimo ama uu aamino khayaaliga ah in la shaqeeyo inay khalad tahay. haddii dadka dhalinyarada Soomaaliyeed badankood waxa ay ka soo jeedaan qoysas danyar ah. qoysaskaas awood uma laha inay bixiyaan ka badan quutulyoomkooda iyo waxbarashadooda. badankeen waxaan ka shaqeynaa shirkado, hay-ado, institutionno, iskoolo, jaamacado, ganacsiyo iyo wixii lamid ah. waana kaalin weyn oo bulshadeena aan ku dhex leenahay. waxaa ka digtoonaataan inaad qaadataan fikirka oranaya shaqaalanimadu waa wax xun. shaqada waa ku koraysaa, waa ku ilbaxaysaa, waxaana awood u yeelanaysaa inaad berri hal abuur keentid. qof walba oo adduunkan meel maray meel unbuu ka soo shaqeeyay, ama ka soo shaqeeyo shirkad ama institution dad kale leeyihiin, ama ha ka shaqeeyo institution ama shirkad familigiisu leeyihiin. iska ilaaliya khuraafaadka shaqa nacaybka ee ayaantan soo badanaya. waqul i'maluu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. waxaan u balana inaan shaqeyno. guul baan hirjeenaya.